maanta waa maalin taariikhi ah dalka aan ku noolnahay Sweden waxaa lagu riday ra'iisul wasaarihii labada sano u dhameeyay Stefan Löfven ee ahaa Social Democratic waxaa loogu raayay 181 ayaa dooratay inuu dhaco. taasna waxay muujinaysaa in Vänsterpartiet ayaa maanta xaaladooda aad iyo aad u kuleed, waxayna taageerayaan shacabka ku nool dalka Sweden iyagoo u taagan maadaama la kordhiyay ijaarkii guryaha iyo waxyaalo kaleeto badan oo hadda aan galgali karin, laakiin kulli wuu dhacay maanta. Stefan Löfven waxaan leenahay waxay haystaan u maleynayaa 9 maalmood ay haystaan inay ku soo doortaan mid cusub. sida ogtihiin sida waxa uu dhimanbo dowladdaaniti markii labaad ku guuleysatay dalka Sweden ra'iisul wasaarenimada ururka Social Democratic. horta runtii waxyaalo badan ay qabteen, waxyaalo badanna way ka gaabiyeen ayaan jeclahay. hadda tan iyadoo lagu jiro sanadahan na soo hayay xaalad caafimaad daro corona 19 saas aawageeda iyo dadkiioo yacni rabeen weji cusub oo Social Democratic marka waxaan leenahay Social Democratic waxaan leenahay qofka soo bixi doonto hadda wali ma cadaanin maadaama waxaan curdun tahay oo maanta laga joogo saacado ka hor oo loogu guuleystay oo ku dhacay ra'iisul wasaarihiina Stefan Löfven ee Social Democratic ahaa. marka waxaan leenahay Sweden waxaan u hambaleynayaa intii doonaysay isbedel doonka ahayd يعني isbedel doonka ahayd waxaan leeyahay hambalyo. intii laga raayana waxaan leeyahay guusha laba qof kama qosolsiiso, saas aawageeda waxaan leenahay horaa loo socdo. qofka soo bixi doona Social Democratic ayaan dib ugula soconaynaa. haddana waxaan leenahay waa maasan tahay Stefan Löfven, intii dulqaad iyo sabar iyo dadaal aan noo soo gashay. waana ka xunnahay wadada aad ku dhacday, wadada aad martay, laakiin qof walbo wixii loo qoray markuu xabka yahay ayuu ku guuleysanayaa. waana taas horaa loo socdo, yaan niyo jabin, waxaana way iska dhammaanaysaa, waa adduunyo.